Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fiidiyowgan waxaynu kaga hadli doonaa wax kasta oo aad uga baahan tahay dhabar xanuunka. Ka bilow qoorta, lafdhabarta ama garabka iyo dhaadhaca ilaa iyo qaybta ugu dambeysa ee xataa xanuunkeedu u gaadho lugta. Taasoo ay dad aad u badan ka cabanayaan oo ka socon kari laayihiin. Waxaynu ku bilaabi doonaa sida caadadaynoo ahayd sida u kala horeeyaan. Waa qaybta koowaad ee cervicalka ama aynu u naqaano qoorta. Qoortu waxa weeyaan waxyaalaha aadka u muhiimka ah ama aynu isticmaalo all the time. Haddaynu eegayno dhinacyada, haddaynu soconayno iyo haddii aynu wax concentrate garaynanaba. Waxaa la yidhaahdaa waxyaalo normal ah oo aynu everyday samaynaa ayaa ah dhibaatada ugu weyn inoo geysta. Waxaa ka mid ah qofku inuu sida imika technology-ga oo kale uu computerka aad u isticmaalo computerka waqti ka badan isagoon break sameynaynin. Computerkii buu isticmaalayaa saacad, 2 saacadood, 3 saacadood isagoo aan xilli break oo uu kaco oo meel tago oo soo noqdo oo uu socdo oo ka duwan eegis iyo qoraal aan ahayn ayuu samaynayaa. Macnaha wuu ka badbadinayaa. Waxaa kaloo ka mid ah daawashada inuu mobilka rogrogayo sida imika waqti xaadirkan dadku ay sameeyaan oo iyaduna runtii musiibo soo korodhay oo qoor xanuunka waxyaalaha keena ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah qofku qaabka uu seexdo habeenkii ama meesha uu seexdo lafteeda ayaa iyaduna ka mid ah oo sababta mararka qaarna waxaynu idhaahnaa innagaaba isticmaalo waxaynu birkimo dhaca oo xalay birkimada ayaan ka dhaco si qaldan ayaan u seexday. Waa ereyada Soomaalidii hore ay isticmaali jireen. Qaybta saddexaad ee kale aynu ku dari karnaa waxaa ka mid ah wax la yidhahdo poor posture oo qofku inuu qaabka u taagan masalan uu shaqeynaya shaqo ku shaqeeyaa shaqada taagnibu ku shaqeeyaa laakiin qaabka uu taagan yahay ayaan ahayn qaab siman dabadeedna poor posture-kaasina wuxuu keenaa in uu xanuunka keeno oo iyadana xanuunka qoorta ku dhaca ayay ka mid tahay. Mid walba iyo sida loo manage gareeyo iyo xilliyada aad raadsanayso dhakhtar waxaynu kaga sheekayn doonaa qaybta dambe ee fiidiyowgeenu runtii ugu dheeraan doonaa waayo waxaynu ka sheekaynaynaa xanuuno aad u badan oo kala duwan oo laga yaabaa ka kohaya inuu ku jiro. Marka waxaan rajaynaynaa inaad shahaaga soo qaadato aad soo fadhiisato arrimahaagana soo dabarato. Waxaa kale oo jira haddaba xanuuno waaweyn oo mararka qaar xanuunkan iyaguna sababi kara. Xanuunada waaweyn waxaa ka mid ah wax loo yaqaano inay qofkan ku dhacday disc herniation. Yacni waxa soo baxday qaybta u dhaxaysa ama bushka asaasa u fudud baan u malaynayaa af Soomaaliga. Qaybta u dhaxaysa lafaha cervicalka ee ka ilaalisa in ay isku dhacaan Ilaahay u sameeyay si aynan u dareemin dhaqdhaqaaqa lafteena. Subhanallah ayaa waxa mararka qaar soo baxda oo soo jeeda carjawdii iyo gidaarkii ilaalinayay dabadeedna dibadda ayay u soo baxdaa kadibna lafta ayaa qabata waxa loo yaqaano disc herniation. Waxyaalaha kale ee dhici kara waxaa ka mid ah xanuun loo yaqaano spinal stenosis. Spinal stenosis kaasi haddii iyaduna dhacdo waa xanuunada aynu kaga hadli doono gadaal aynu sheegi doono sida loo maareeyo iyo xilliga dhakhtar raadsanayso. Waxaa kale oo ka mid ah osteoarthritis. Osteoarthritis wax kale maaha waa rheumatism-ka nooc ka mid ah kuwaasi oo iyaguna lafaha meelaha ay ka dhaqdhaqaaqaan dhibaato u geysta iyo kuwa loo yaqaano inflammatory conditions. Maxay yihiin inflammatory conditions? Inflammatory conditions wax kale maaha waxa weeyaan rheumatoid arthritis-ka aanu kasoo sheekaynay oo si toos oo specific ugu dhacay cervicalka. Haddaba ka soo qaad haddii qofkani uu accident buu galay gaari buu watay gaariga accident-kii kadib ayaa waxa dhacay inuu xanuun aad u badan ka dareemay qoorta. Maaha qofku haddii aynu physics-ka dib u xasuusato waxa weeyaan in uu qofku inertia ayuu ku socdaa marka uu saaran wax la yiraahdo inertia wax kale maaha waxa la yiraahdaa object kasta oo move garaynayo socdaa waxa kale dul saaran waxay ku socdaan xawaaraha uu ku socdo xawaara la mid ah. Marka xawaarahaasi uu ku socday qofkii markuu accident-kii galo dhaqaaqii xawaarihii ayay ku soconaysaa qoortiisa iyo jirkiisa dabadeedna dhaqaaqa degdeg ay samaysay ee dhaawac keenay. Dhaawacaasina waa halis waxaana laga yaabaa haddii uu inuu spinal cord-ka iyo waxyaalaha dhaawaco qofkana uu paralyzed ka dhigo. Muxuu ahaa qaybtaasi waxaynu kaga baxaynaa qaybtii cervicalka. Hadda waxaynu gelaynaa qaybta dhexe dhabarka sida garab xanuunka iyo dhex xanuunka laf dhabarta iyo wixii la mid ah. Nala jooga waxaan rajaynayaa hadda halkan nala soo gaadheen
inaad share garayso oo aad like garayso oo aad dadka kalena gaadhsiiso. Aad iyo aad baad mahadsantahay. qaybtani waa qaybta dhexe ee dhabarka oo loo yaqaano thoracic spine. marka thoracic waxay ka bilaabataa T1 ilaa T12. waxa ay ka bilaabantaa qoorteena halkay ku dhamaata ilaa iyo dhabarka halka uu ku dhamaado sidaynu u naqaano. xanuunada aad ka dareemayso waxa ka mid ah qofku inuu labada garab inta u dhaxaysa uu xanuun ka dareemo, ama muruqyadaba ha noqoto ama dhabarka ee garabka hoostiisaba ha noqoto inuu xanuun ka dareemo, inuu dareemo dhaqdhaqaaqiisii iyo socodkiisii dhaqdhaqaaqii fiicnaayo flexibilities inay yaraatay oo markuu dhinac u dhaqaaqaba uu xanuun dareemayo. waxyaalaha ka mid ah inuu dhaqdhaqaaq muruq uu sidii wuxuu geejisan yahay oo kale uu dareemayo. waxaa laga yaabaa mararka qaar in qufaca iyo hadalka qaarkii iyo marka uu qoslo oo kale inuu xanuun dareemayo. xanuunadaasi ayaynu kaga hadlaynaa waxyaalaha keenaa, waana qaybta ugu muhiimsan marka la eego xanuunadan aynu ka sheekaynayno, waayo waxay sababaan ama ka mid ah xanuuno waxa ka mid ah very important hayga tegin ila soco. ta koowaad aynu ka soo qaadanaynaa waxa ka mid ah ay ka mid yihiin tii hore ee qoorta ay kala mid tahay qofku qaabka uu u taagnaado ama uu u fadhiisto. marka qaab fadhiga hadduu qofku fadhiga qaabka u fadhiistaa, hadduu masalan uu fadhiga ku shaqeeyo, qaabka u fadhiistaa waa qayb weyn ayay ka tahay. masalan xilliga uu fadhiyayo hadduu ay masalan xilli diiran tahay oo kulayl ah dabeedna uu dhabarka in badan ku hayo meel diiran, waxaa laga yaabaa muruqyadu inay isbaasam sameeyaan, xanuuno uu ku yimaado, xanuunkaasna uu dareemo. waxaa laga yaabaa qaabka u fadhiya hadduu qaab qalloocan u fadhiyo inuu marka uu ka kaco kadibna maalintaa iyo wixii ka dambeeya uu dareemo. adigu qaabka u fadhiyo oo qaldan qofkaasi ayaa number 1 waxyaalaha keena ka mid ah. waxyaalaha kale ee ka mid ah waxaa ka mid ah qofku inuu wax culus mar qura haf la yidhaahdo uu si dhaqsaa u qaado, isaga oo qofku aan iska normal ah oo caadi wax dhibaatii jirin ayuu wax culus qaadis yidhi. qaadistii uu qaaday kadib yar kadib wuxuu dareemay meel ka mid ah jirkiisu gaar ahaan dhabarku inay xanuun ay samaynayso. waxaa kaloo ka mid ah qofku hadduu exercise-ka ama exercise-da dhabarka ama ha noqdo ama kuwan kale jimamkaba ha noqdo uu exercise aad iyo aad u badan oo aanu hore u samayn jirin uu sameeyo, iyaduna waa ka qayb. waxyaalaha haddaba muhiimka ah ee very important ah waxaa ka mid ah xanuunada loo yaqaano referral pain. referral pain wax kale maaha, waa xanuun ka jira gudaha jirkaaga sida wadnaha, sanbabka iyo kelyaha oo aad laakiin ka dareemaysa xanuunka xagga dhabarka. kuwaas waa very important. waxyaalaha aad u baahan tahay in xanuunada hadday kugu soo noqnoqdaan adiga oo aanad 3 hore ilaa 4 hore aynu sheegnay aanad haysanin ama aanad kugu dhicin, in aad maxay samayso, inaad dhakhtar u tagto si loo jeegarayo in dhibaatadan ay ka timid xididdada waaweyn ee wadnaha ama ay ka timid sanbabka ama ay ka timid muxuu ahaa kelyaha. waxyaalaha muhiimka weeyaan aynu u leenahay tani waa muhiim. waxa kale ee muhiimka iyadna ku jira lafdhabarta qaybtani waxaa ka mid ah inuu infection ku dhaco. infectionada waliba ku dhaca inaga wadankeena saan rajaynayo waxay ugu badan TB-da, wadankeena TB-da ku badan. waxaa laga yaabaa in qofkaasi ay TB lafood ku dhacday walibana ay kaga dhacday dhabarka, wax dawaana loo waayay, qofkaasina uu iska jiifo xataa uu dhaqaaqi kari waayay, dawadii lana diagnose gareyn waayay inay tahay bacteriadan keenta muxuu ahaa TB-da, deedna qofkaasi uu muddooyin badan iska jiifo oo aanu lahayn nolol hagaagsan oo ku noolaado. waxyaalaha kale ee ka mid ah waxa loo yaqaan inflammatory conditions oo ay ka mid tahay sidii timarkii dhaweyn soo sheegnay oo kale osteoarthritis-ka iyo dadka waaweyn iyo dadka lafa xanuunka qaba qaar ka mid ah osteoporosis la yidhaah qaba, kuwaasina waa ka qayb. marka qaybtani iyo sida loo manage gareeyo iyo xanuunadaasi xilliga aad dhakhtar raadsanayso waxaynu kaga hadli doonaa qaybta managementka iyo sida loo maamulo. iyo waliba waxyaalaha kale aynu ka hadli doono waxaa ka mid ah qofku siduu isagu isku keergaraynaya xanuunadii hore aynu ka sheekaynay, sideebuu xanuunka fadhiga iyo taagnida qaldan iyo waxyaalaha uu la booday iyo xanuunadaasi ay keeneen sideebaa loo manage garaynaya. qaybtaasi waxa weeyaan qaybtii labaad ee aynu kaga hadlaynay iyadana lafdhabarta T1 ilaa iyo 2 iyo xanuunada ay samayso iyo wixii commonka ahaa waxaynu ka sheekeynaa waxa commonka ah. waxyaalaha rayirka kama sheekeyna sida tumorka oo kale iyo kansarka. kansarka iyo waa ka qayb, laakiinse iyadoo inta badan wax rayir ah oo aan
ku badnayn. Haddii ay dhacdana waa waxyaalaha aynu xagga dambe kaga shaqeyn doono inuu qofku iska soo ogaado oo uu hubiyo inay arrinkan yahay arrin ma garanaysaa kansar la xidhiidha iyo in kale. Okay, qaybta saddexaad waa qayb runtii aad iyo aad u muhiim ah, waxaana weeyaan qaybta xataa saamaysa lugaheena. waxaad arkaysaa qof kule waxaan ka cabanayaa dhabarku inay xanuunayso ilaa iyo halkaa muxuu ahaa berida dusheeda ilaa iyo lugta hoosteeda ilaa iyo lugta hoosaba inuu xanuunku gaadhay oo qofkaas uu ama dhutiyayaba ama uu socon bakri lahay. qaybtaasina waa qayb muhiim ah, waxaynu kaga sheekeynaynaa qaybta saddexaad. waxaan rajaynayaa in ay intaa hore aad ka faa'iidaysateen. waxa aynu soo horreysiin doonaa waxyaalaha aynu af Soomaali ahaan aad ugu fahmayno ama aynu hayno xanuunada aynu hayno magacyo fasiraada leh. tusaale ahaan kuwa normalka ah ee qofka xanuunka ku keeni kara waxaa ka mid ah qaybta dambe ee loo yaqaano lumbarka. waxyaalaha dhibta ku keeni kara waxaa ka mid ah qofkani inuu isbedelo habkii uu noolaa. tusaale ahaan dumarka oo kale, dumarka waxaa ku dhacda ama dee waxay qaadaan xilliyada qaar ilmaayay qaadaan, uur bay yeeshaan. uurkaasi wuxuu sameeyaa culays buu kusoo kordhiyaa jirkii, oo waxa weeyaan culayskaasi wuxuu bedelaa markaa qaabkii uu jirku u samaysnaa. qaab dhismeedkii dhabarku markaa wuxuu xajinayaa waa culayska uu xajinayaa qalooc buu keenaa. qaloocaasi ayaa keena xanuun inay ka dareemaan qaybta lumbarka ee u dambeysa lafdhabarta. waa qayb ka mid ah. waxyaalaha kale ee keeni kara waxaa ka mid ah qofka oo aad iyo aad u naaxa, qofka oo gaar ahaan intan caloosha ka naaxa, sida waxay la mid tahay qiyaas ahaan uurkan dumarka oo kale. culayska fuulay iyo qiyaasaha isbedelada ku dhacay ayaa waxa laga yaabaa iyaguna inay cadaadis saaraan qaybta dambe ee muxuu ahaa lafdhabarta. taasina waxa weeyaan waxyaalaha keeni kara in uu xanuunkaasi uu ka dareemo. waxyaalaha kale ee keeni kara waxaa ka mid ah in qofkaasi uu isagu poor postures kuwii hore o dhan bay kala mid tahay, qaabka uu qofku u fadhiisto iyo qaabka uu u taagan yahay. iyaduna waa qayb ka mid ah oo keenta iyo waxa uu ku fadhiistaba. hadduu wax ku fadhiista wax siman yahay, wax kala qalooca yahay, qaabka uu fadhiisto, laakiin waa inay muddo dheer tahay. waxyaalaha kale oo magacyo aad u badana oo runtii aynaan inagu af Soomaali badan u haynin, laakiin aynu intaynu fasirayno waxaa ka mid ah oo idna kuwii hore tahay kala mid tahay dhaafin inuu qofku wax culus qaado ama uu si qaldan u qaado. iyaduna mararka qaar way sababtaa, laakiin lama mid aha sidii tiri dhabarka oo kale la mid maaha. waxaa ka mid ah oo idna ay kala mid tahay waxa la yiraahdo herniated diskigii aynu ka sheekeynay markaan cervical ka soo maraynay, oo isaguna qiyaasta inta badan soo baxa kadibna dhibaato geysta ama isaguba xanuunka keena. xanuunadan kale waxaa loo yaqaano osteoarthritis, spinal stenosis oo ah inuu spinal cordku isaguna stenosis ku dhaco yaraado. spondylitis ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah compression fracture waxa la yiraahdo, oo inuu qofkaasi dildilaac ku dhacay, culays iyo trauma ku dhacday awgeed. waxyaalaha kale oo ka mid ah waxa la yiraahdo ankylosing spondylitis iyo spinal infections iyo spinal tumors, oo waxay yihiin kuwaasina waxa weeyaan qofka oo infection ku dhaco iyo inay waxyaalaha allergiga ka mid ah ay lafta dhexdeedii ku dhacaan ama labada lafood inta u dhaxaysay, iyo in uu cancer iyo wixii la mid ah ku dhaco. waxyaalaha kale ee muhiimka ah iyadna waxaa ka mid ah haddii keliyaha qaybta lisayaasha oo kale iyo keliyaha qaybta muxuu ahaa lisayaasha af Soomaaliga taasaa ku habboon. haddii dhagaxaan kaa galaan, dhagaxaantaasina marka qaar waxay sameeyaan ama xagga ay ku xidhantay halka ay ka dhaceen, laakiinse waxay sameeyaan referral pain oo iyadana laga dareemo qaybta dambe xanuunka. waxyaalaha kale ka mid ah waxaa ka mid ah Allahumma salli ala Muhammad aneurysm iyo xataa pancreatitis kuna wuxuu sababaa qofka ganaca oo olol ka dhaco. marka qaar wuxuu sababaa inaad halkaa ka dareento xanuunka. xanuunada badan waxaa jira la yiraahdo referral pain oo qofkan inuu pancreatitis qabo laakiinse xanuunka uu ka dareemay halkaa oo loo yaqaano referral pain. ama ugu muhiimsan aynu doonayno inaynu awoodda saarno oo ay dad badan aad uga cabanayaan oo arkay, oo iyadana video gaar ah kasoo samayn doono, wax loo yaqaano sciatica. sciatica wax kale maaha, waa dareen wadaha jirkeena oo laba lafood kala dhex galay. dareen wadahaas waa dareen wada aad xoogan oo weyn oo dareenka siiya qaybta dambe ilaa iyo
lugta dhamaadkeeda kaasi ayaa cadaadis wuxuu kala dhex galay labadii lafood baana isku xajinaya dhaqaaq qofku markuu sidaa soco ayuu xanuunkii kusii ziyaadaya deedna qofku wuxuu gaarayaa heer u dhutiyo xanuunadaasi oo magacyadaa leh haddii ay mid kamid ka cabanayso aad u baahan tahay inaad talo gaara waxaan rajaynayaa inaad qaybta hoose ugu reebto commentiga ama fiidiyoyada ama qaybta Facebooka iyo Instagramka taala channelka dushiisa inaad nagala soo xiriirto si aanu ku caawino qaybta managementka waxaynu ku bilaabaynaa wax loo yaqaan cervicalka qaybtii qoorta si loo manage garaynaya waxa managementka aynu kala saari doonaa wax loo yaqaan conservative oo aynad adiguba aad control karto xanuunka iyo qayb loo yaqaan medications oo iyada ay dawooyin loo qoro oo dhakhtarka iyo cidii lamid ah waliba dawooyinka qaarna aad over the counter yihiin oo qaadan doonto adigoon u baahanba dhakhtar iyo qaybta saddexaad oo haddii ay qayb khatar ay tahay inaad u baahato qalliin iyo wixii lamid ah ayaynu ka sheekayn doonaa qaybta conservative-ka iyo sida adigu u maamulayso waxa kamid ah haddii qoortu ay xanuun kugu bilowdo adigoo soo kacay oo hurdo ka yimi inaad hurdadii ku celinin aanad nasasho badan samaynin aad waxoogaa intaad biyo diiran aad ku maydhato ama aad biyo diiran oo bac kusoo xidhay aad ku qabqabato qoorta kadibna aad kasii socoto hawlahaaga qabsato oo aanad horta sariirta in badan ku raagin taasi waa number 1 talabaad waxa weeyaan inuu qofka activity-ga uga sii daraya waxba uga sii daraya qofkan shaqada uu qabto wax kamida markuu shaqada qabto mesela haduu TV uu daawado ama uu computer hortaagan yahay foorarka faraha badan ayaa uga daraya iyadana muddo ha ka yara nasto waxyaalaha uga daraya si meesha u nasto oo ay inflammation-kii iyo xanuunkii iyo waxyaalihii imanay uga yaraado waxa kamid ah inaad dad baraf haysato aad baraf meesha ku xanuunaysa ku qabato in aad hadaad qaab fadhiisigaagu marka hore adiga oo yara dandiigsan ama dhinac u qaloocaad fadhiisan jirtay ama wax qori jirtay ama inaad adiga oo meel solid ah oo siman intaad istaagto aad fadhiisato kadibna hawlahaaga aad computer wax ku qorayso iyo gacanta wax ku qorayso aad samayso inta badan ardayda ayaa arrinkaasi ku dhaca iyaduna waa waxyaalaha haddii waxaas oo dhan wax ku qaban waayaan inaad qolada wax duugta ee physiotherapy-ga laakiin qof certified oo garanaya wuxuu samaynayo inaad u tagto si uu ku caawiyo laga yaabaa inay taasba kaaga dhamaato okay haddii waxaas oo dhan wax ku qaban waayaan muddada laga yaabaa inaad muddo yar ku bogsato maalin 2-3 muddadaasi waxaad isticmaashaa paracetamol adiga oo qaadanaya intii loogu talagalay in ka badan aan isticmaalayn haddii ay taasi wax ku qaban weydo markaa waa inaad dhakhtar raadsato si dawooyinka lagugu soo qoro muruqyada iyo lafaha ku sameeya fududeeya ama muscle relaxants wax la yiraahdo iyo kuwa lamid ah haddaba haddii mesela ay arrinkani u noqdo arrin مثلا ogtahay inay dhibaato keentay مثلا adiga ayaa waxa kugu dhacday gud baa lagu dhuftay bir baa kugu dhacday gaari baa accident ku gashay xanuunkana markaas uu bilowday marka waa inaad dhakhtar definitely raadsato si lagu sawiro oo laga lafto inay jaban tahay iyo in kale qofkani mar hore ayuu kansar ku dhacay kansarkii ayuu leeyahay history qofkan inuu ku dhacay historygaasi muddada dheer kadib ayaa hadana xanuunka yimi isla xanuunkaas waxa looga shakaysan yahay inuu keeni karo waxa la yiraahdaa metastasis oo inuu soo fiday ama meesha uu soo gaaray xanuunkii kansarku marka iyaduna waa muhiim inaad dhakhtar u tagto waxyaalaha kale ee muhiimka ah waxa kamid ah qofku haddii uu walibana si dhaqso ah u lumiyo weight isagoo qof iska normal ah caadi ahaan mar qura 10-20 kilo qofku hoos u dhacay oo baabay marka qoor xanuun uu leeyahay markaana waxa looga shakaysan yahay qofkaasi inuu isaguna u tago dhakhtar si loo hubiyo inaanu waxaan kansar ahayn iyo in kale haddii qofkaasi ay dhacdo in muxuu ahaa iyadana ay ku dhacdo in severe unrelated pain sida ma garanaysaa habeenkii unbu xanuun garaac joogta ah unbu qofkaasi dareemaa iyadana waa waxyaalaha red flags-ka loo yaqaano ee uu inuu dhakhtar u raadsado ay tahay waxyaalaha kale ee muhiimka waxa kamid ah xumad iyo waxa israacay in qofku qoorta xanuunayso iyadana waa inuu dhakhtar raadsada inahaas ayaynu ku koobaynaa iyadana talooyinka aynu ka bixinayno iyo sida loo manage garayo qoorta hana ilaawin inayna ahayn meeshani meel aad kaga maarmi karto inaad xarun caafimaad tagto si garanaysaa lagu daaweeyo management of the thoracic pain iyadana waxaynu ka sheegaynaa aad bay iskugu dhow yihiin tii hore waxyaalo yar bay ku kala duwan yihiin iyada waxaynu leenahay waxoogaa nasasho waad u baahan tahay ood sariirta seexato laakiin se ha dheeraysanin oo yeena iyadu
kugu soo celinin dhib kale iyo xanuun kale. waxyaalaha kale ka mid ah inuu qofku activity-ga uu sameeyo iyo qaabka uu sameeyo. tusaale ahaan hadduu qofkan yahay qof wax qaada ama xamaala ama xoogsata ah, inuu qaabka uu qaadaa uu noqdo qaab uu raacayo waxyaalaha health and safety-ga ah, inaanu haddii uu muddo ka maarsan karana inuu ka nasto si uu dhabarkiisa usoo nasto oo uu la daado. marka waxyaalahaas waa talooyinka aynu bixinayno. qofku qaabkii uu fadhiyey hadduu dhibaatada ku keenayay iyo qaabkii uu garanaysaa u taagnaa, iyadana inuu qaab istaagiisii u bedelo oo uu bedelo qaab loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammad ergonomic workstation wax la yiraahdo. waxa kale oo ka mid ah gentle stretching and a range of emotion exercise. qofkani inuu qaabka uu isku kala bixinayo marka uu tooso oo kale ama uu kacayo oo kale, inuu qaab gentle ah oo khafiif ah oo wanaagsan oo aan degdeg inuu u kaco iyo degdeg inuu stretch u sameeyo inayna ahayn. haddii intaas ay afiici weydo, waxa looga baahan yahay inuu tago maxay meel loo yaqaano physiotherapy si loo caawiyo loona xoojiyo habka uu u socdo iyo flexibility-giisa muruqyada dhabarka, duugitaana loo sameeyo, iyada oo laakiin aan mar walba sheegayno qofka u tagaysa physiotherapy-ga sameynaya inuu noqdo qof maxay khibrada leh oo aqoonta leh. qaybta labaad waxay noqonaysaa medications oo aynu kasoo hadalnay oo ahayd inuu paracetamol iyo ibuprofen iyo dawooyinka isagu over the counter-ka ka qaato muddada uu xanuunka hayo si uu xanuunku uga yaraado, kadibna uu ilaawo jirkiisuna uu normal ugu soo noqdo. qaybta saddexaad waxay noqonaysaa wax la yiraahdo interventional treatment oo ah in qofkii dhakhtar uu tago dawa lagu mudaa, laakiin dawooyinkaasi ilaa ay heerka gaadhaan xanuunkuna uu aad u badan yahay inaanad dawadaasi ku mudin, aanad isku mudin ma kugula talin lahaa ilaa aad dhakhtar aragto, welibana dhakhtar ku takhasusay pain relief-ka. surgical treatment-ga waxaa ka mid ah iyadana haddii qofka masalan oo xataa taqoorta aan soo ilownay, waxaa ka mid ah haddii dhiskigii soo baxay ee dibadda yimi, dhiskigaasi wax loo yaqaano thoracic disc herniation, iyadana si dib loogu celiyo waa in qalin loo sameeyo haddii ay ku bixi weydo siyaabihii farsamadii aynu kasoo sheekaynay. wax loo yaqaano baa jirta spinal cord compression haddii jirto, iyaduna waxay u baahan tahay surgical treatment haddii ayadna qalin lagu sameeyo. unstable or severe compression fracture haddii jirto, iyaduna waxay u baahan tahay qalin. waxyaalahaas oo dhanba qalin ayay u baahan yihiin. waxyaalaha kale ee iyadu loo yaqaano osteoporosis-ka iyo infection-ka iyo wixii lamid ah, iyaga waxa loo daweynayaa hadba xaalkoogu sida uu yahay. haddii qofka cancer laga helana cancerka iyo proceduradiisii iyo sidii loo mari jiray ayaa loo maraya. marka muhiimadda ugu weyn ee aynu fiidiyogan dheer ugu talagalay waxa weeyaan in aynu horta kaga maarano waxyaalaha la isu sheegayo beenta ah. marka xanuunku hadduu yahay xanuun si toos ah kugu dhacay, waxyaalaha aynu kasoo sheekaynayna ay tahay masalan accident kugu dhacay, bir kugu dhacday iyo waxyaala lamid ah, kuwaasi ha sugsugin in ay si yaro fudud ay kaaga baxdo. in dhakhtar raasato lagu sawiro, leega laftu inay jaban tahay, inay dhaawacday dhiskiga, inay dhaawacday dareen wadayaasha. xanuunadaas oo dhan waxa weeyaan muhiim inaad dhakhtar aragto. okay, xanuunkii sciatic nerve oo isaguna qaybta dambe ee aynu kaga sheekayn doono lumbarka, isaga wuxuu u baahan yahay in exercise-kiisa iyo qaabka loo maamulo aynu isagana aragno. qaybtiisaynu ugu tegaynaa. managementka kan xiga waxa weeyaan lumbarka oo aynu ka sheekayn doono sciatic nerve-ka iyo referralka. referralka halkan waxaa ka mid ah qaybta kelyaha oo kale. waxaa laga yaabaa dhabarka qaybta kelyaha ku beegan inaad xanuunka ka dareento. xanuunkaasi hadduu soo noqdo joogto noqdana waa inaad dhakhtarka kelyaha u tagto si loo hubiyo inayna dhibaatadani ka imanin kelyaha. okay, aynu ku socono qaybta aynu gala markaa lumbarka iyo sida loo maamulo. lumbarku xanuunadiisu wayna kasoo sheekaynay, xanuuno aad u badan ayaa xanuunka keena, laakiin kuwa commonka ah ayaynu ka sheekayn doonaa managementkooga. kuwa kalena waxa aynu u referral garayn doonaa ama u dayn doonaa qofku inuu dhakhtar u tago si loo hubiyo loona kala saaro. lower back pain management waxaynu kaga hadlaynaa qaybta dambe ee dhabarka iyo sida loo controlo ama sida xanuunkeeda loo manage gareeyo, qaybta loo yaqaano lumbarka. qaybtaasi waxay kala mid tahay qaybtii cervicalka. masalan inuu qofku u qaato wax loo yaqaano stay active, inuu qofku active noqdo oo aanu seexanin, hurdo dheerna aanu sariirta ku qaadanin, waa qayb ay kala mid tahay. waxyaalaha kale oo dhanna way kala mid tahay. waxay kala mid tahay inuu qofku biyo qabow ama
biyo diiran uu isku qabqabto labadaba kolba kii u shaqeeya inuu maintain gareeyo posture-ka oo posture-kiisii fiicnaa qaabka u taagnaa qaabka uu fadhiyay inuu bedelo oo uu isticmaalo qaab toosinaya dhabarkiisa oo aan qalqalooc ku samaynaynin inuu ma garanaysaa physiotherapy raadsado si loo kala saaro lafihii inuu raadsado iyaduna waa laakiin qof professional mar walba ku celinaya arrinka iyo qofka weight loss inuu qofka hadduu yahay qof aad u buuran oo culayskani yahay ka dhibta ku keenaya inuu isaguna isdhuubo waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha qofku isagu samayn karo waxyaalaha kale ee uu ku controlayo muddada kooban waxaa ka mid ah medications dawooyinka paracetamolka iyo ibuprofen inuu qaato laakiin waa waqti yar oo kooban maalin 2-3 inaanu ka badsanin waayo paracetamolku waa xanuun runtii aan u fiicnayn muddada aadka u dheer waxyaalaha ka mid ah hadda interventionalka loo yaqaano waxaa ka mid ah epidural steroids in qofka lagu mudo oo injection loo sameeyo waliba qof professional inuu sameeyo weeyaan arrinkaas haddii kale dhibaato ka weyn oo paralysis iyo wax lamid ayuu keenaa surgical treatment goorma u baahanaya qofku in qalliin lagu sameeyo wuxuu u baahanayaa haddii xaaladiisana ay kasii darto oo ayna lahayn wax rajo ah walibana marka la sawiro ee la eego ilaa iyo MRI iyo CT scan waxba lagu eego ayaa la go'aansanaya waxaana go'aansanaya dhakhtar ku takhasusay arrinka Cowra equa waxa la yiraahdo inta badan carruurta iyo ku dhaco syndrome ku dhashaan haddii jirto taasina in qalliinka loo sameeyo haddii ay jirto persistent disabling pain despite adequate conservative treatment adiga oo qofkaasi isaga oo sameeyay dawooyinkii physiotherapy-gii tagay haddana ay xaaladaasi ay joogsan weydo iyadana waa la sawiraya kadibna marka la hubiyo inay diskiga tahay wax la mid ah waxaan jeedaa in lafta tahay in la mid ah in marka qalliinka loo sameeyo haddii qofkaasi ay ku dhacday tumor ama lumbar disc herniation ay ku dhacday ama spinal stenosis wax la yiraahdo ay ku dhacday ama spondylolisthesis ay ku dhacday ama kuwaas oo dhan waxay u baahan yihiin adigu waa lafaha oo ama burburay ama qalloocday ama liicay iyo wixii la mid ah in iyagana correction bay u baahan yihiin oo in la saxo waxyaalaha muhiimka iyadana in la saxa kamid waxa kamid ah haddii infection jiro waa infectionkii la daweeyo haddii osteoporosis ay jirto oo inay lafuhu daadanayaan ama ay dabceen ay tahay ama saas af Soomaaliga ku fudud baan malaynaya inay jiraan iyo in la eego calciumtiisi iyo xaaladda halkay marayso qofna hadduu kansar hayo kansarkii in qofka laga daweeyo waxyaalaha kale ee muhiimka waxa kamid ah inta badan dadku ayna ka bogsanin kana cawdaan in qofkaasi mar dib u dhacay dibka u dhacay oo lafta ku dhuftay dhabarka lumbarka meel dadna ayna bogsaninba markasta uu fadhiisanayo markasta uu meel ka kacayo ay xanuunto taasi dhowr nooc bay noqon kartaa in qofkaasi uu markaa horeba jabnayn ama dhibaato ay dhacday laakiin si aan la sawirin oo aan dhakhtar tagin oo iska fudaydsaday kadibna laftii oo bogsanaysa si ayar ay ku socoto ama si qaloocanba u bogsatay kadibna xanuunkaasi uu joogtoobayo inta noloshiisa ka hadhay haddii aanu dhakhtar raadsanin waxaa rajaynayaa video aad buu u dheeraanaya haddii aan ku darno sciatic nerve-ka iyo sida loo manage gareeyo oo sciatic nerve-ku isagu wuxuu u baahan yahay isaga laftiisa waqti aad u dheer u baahan si lagu tuso jimicsiyada la sameeyo si uu qofku waliba naftiisa ku controlayo taasaana very important marka isaga video gaar ah ayaan ka dhigi doonaa insha Allah aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina haddii uu videogani inuu kuu faa'iideeyay waxaan rajaynaynaa inaad soo subscribe garayso channelka ee aad gaarsiisana saaxiibada. Assalaamu calaykum waraxmatullah.